السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا رفيقي أكاديمي. رفيقي أكاديمي هو سكول لك برنايا لغة السواحلية، لغة سولو تفسيرايا سومالية سي دكا سومالي دا يفهمان سيفي عن لغة السواحلية. halkani waxaan idinka soo gudbinaynaa casharada taxana ah oo weegiba ama isbuuciba la soo gelinaya laba cashir hakii loobin fadlan inaad saartid subscribe gambaleelkan aad furitid si aan kugu soo gudbino casharada xiga. maanta casharadeenna waxay ku saabsan yihiin wada sheekaysi ka dhaxeeya laba ruux, gabar iyo wiil, kuwaas oo wada kulmaya markii ugu horeysay ee ka wada sheekaysanaya arrimo fara badan. labada qof markay horta u kulmaan markii ugu horeysay ay kulmayeen oo ayagoon aqoon isu lahayn waa inay isbartaan, magacyada isweydiiyaan. marka wada sheekaysigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay laba qof oo isbaranaya. Halima iyo Musa ayuu ku saabsan yahay. Halima waxay leedahay habari yako, iska waran Musa ayadoo la hadlaysa. Musana wuxuu leeyahay nzuri waan fiicanahay. habari yako iska waran ayay leedahay waan fiicana uu leeyahay. Halima unaitwa nani kaka, waxay weydiinaysaa walaal adiga magaca aboowe magaca ayay weydiinaysaa Musa. waa markii ugu horeysay ay baran rabta magaciisa. Musa wuxuu ugu jawaabayaa mimi naitwa Musa na wewe. wuxuu leeyahay mimi naitwa Musa, aniga magacaydu waa Muuse, adiga magaca. wuxuu leeyahay na wewe mimi naitwa Musa na wewe. wuxuu leeyahay aniga waxaa la yiraahdaa Musa, adigana bal magacaaga ii sheeg. Halima ayaa u jawaabaysa ayadoo dhahaysa mimi naitwa Halima, aniga waxaa la yiraahdaa aniga Halima ayaa la yiraahdaa. ayadoo u jawaabaysa su'aashii la weydiiyay. Musa unaishi wapi? Musa ayaa su'aal weydiinaya. wuxuu leeyahay halkeed ku nooshahay, xageed degan tahay, halkeed ku nooshahay ayuu leeyahay Musa. Halima ayaa mar kale weydiinaysa naishi, ayaa ka jawaabaysa su'aashii hore ee lagu weydiiyay. ka jawaabaysa waxay leedahay naishi Nairobi hasa Isli, waxaan ku noolahay Nairobi gaar ahaan Isli, xaafadda Isli ayaan ku noolahay ayay leedahay. su'aashii hore la weydiiyay ka jawaabaysa ayadoo dhahaysa ninaishi Nairobi hasa Isli, waxaan ku noolahay Nairobi khaasatan ama gaar ahaan Isli. Musa ayaa hadlaya. wuxuu leeyahay mimi pia naishi karibu na wewe, mimi pia naishi karibu na wewe, anigana kama dheeri. Halima upande gani ayay leedahay ayadoo su'aalka weydiinaysa. Musa markuu yiri anigana kama dheeri waan ku dhowahay, meesha aad deganaad meel u dhow ayaan deganahay. waxay leedahay upande gani, xaafadee aad degan tahay. Musa ayaa u jawaabay. wuxuu leeyahay karibu na msikiti, waxaan aad ugu dhowahay masaajidka. waxaan u dhowahay masaajidka ama ku dhawaadka masjidka ayaan deganahay. Halima unasoma shule gani? Halima ayaa su'aalaysa Musa ayadoo weydiinaysa su'aal weydiinaysa. waxayna leedahay unasoma shule
gani iskuulkee ayaad dhigataa ama dugsigeed dhigataa ayay leedahay Xaliima oo Musa su'aal weydiinaysa. Dugsigee ayaad dhigataa ama iskuulkeed dhigataa ayay leedahay. Musa shule ya upili ya Nairobi na wewe uu leeyahay. Wuxuu ka jawaabay su'aasha isagoo dhahaya waxaan dhigtaa iskuulka sare ee Nairobi. Waxaan dhigtaa iskuulka sare ee Nairobi. Adigana iskuulka dhigataa ayuu weydiinaya. Na wewe adigana dugsiga sare ee Nairobi ayaan dhiganaya. Adigana iskuulka dhigataa ayuu weydiinaya Xaliima. Xaliima ayaa ka jawaabaysa su'aasha waxay leedahay mimi nimemaliza mwaka uliopita. Mimi nimemaliza mwaka uliopita. Aniga sanadkii la soo dhaafay ayaan bogay. Aniga sanadkii la soo dhaafay ayaan bogay dugsiga sare. Musa ayaa su'aal labaad celinaya. Wuxuu leeyahay umeenda chuo kikuu ma ku biirtay jaamacad? Ma aaday jaamacad iskuulka sare markaad bogtay kadib? ayuu leeyahay Musa. Wuxuu leeyahay umeenda chuo kikuu ma aaday jaamacad iskuulka sare kadib? Xaliima ayaa ugu jawaabaysa waxay leedahay hapana ninataka kuolewa. Maya waxaan rabaa in la guursado ama waxaanu doonayaa in la guursado oo sidaa darteed ayaan u aadi waayay jaamacadda. Waxay leedahay hapana ninataka kuolewa. Maya waxaan rabaa in la guursado. Musa uko na mtu ama unataraji qof miyaad xiriir leedihiin mise waad rajaynaysaa? Wuxuu leeyahay Musa uko na mtu ama unatarajia bado qof miyaad xiriir leedihiin mise waad rajaynaysaa in aad qof heshid wili? Xaliima ninatarajia waan rajaynayaa hadda qof aan xiriir wada leenahay malaha ayay leedahay. Waxay leedahay ninatarajia waan rajaynayaa. Musa unaonaje mimi nikikuoa? Wuxuu leeyahay sideed u aragtaa haddaan aniga ku guursado? Waayo waxay tiri aniga wax in la guursado baan rajaynaa laakiin qof aan xiriir leenahay hadda malaha. Asna wuxuu leeyahay unaonaje mimi nikikuoa? Sideed u aragtaa haddaan aniga ku guursado? Xaliima ayada oo qoslaysa ayay su'aasha uga jawaabaysa wewe ni mwanafunzi bado. Ayadoo qoslaysa ayaa waxay leedahay adiga waxaa tahay arday. Macnaha waxay ka wadaa adiga wili arday ayaa tahay. Macnaha arday wax ma guursan kara ayaa ka wadaa macnaheeda. Musa niko kidato cha mwisho. Wuxuu leeyahay Musa asaga oo diidaya arrinka laga hor imaadaya ee leeyahay arday ayaa wax ma guursan kartid. Wuxuu leeyahay niko kidato cha mwisho. Waxaan dhigtaa fasalkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ayuu leeyahay. Waxaan dhigtaa fasalkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare. Niko kidato cha mwisho uu leeyahay waxaan dhigtaa fasalkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare. Xaliima ayaa leh mar labaad maalisa kwanza bog marka hore. Horta bal iskuulka soo bog marka hore guur iyo waxyaabaha kuma ay gaarin wili. Musana wuu qancaya asagoo arkaya inuu wili arday wax weyn u soomeyn karin. Wuxuu leeyahay sawa waayahay waa in aan soo bogo iskuulka marka hore. Wuu ka ogolaanaya. Wuxuu leeyahay waayahay sawa. Xaliima tutakutana mara nyingine ayay ku leedahay. Waan is arki doonaa mar dambe. Waa inoo mar kale ayaan is arki doonaa ayay ku leedahay Musa. Iyadoo dhaqaaqaysa ayay ku leedahay tunakutana mara nyingine. Waa inoo mar kale
ama mar kale ayaan is arki doonaa. Muuse wuxuu leeyahay nawe pia adigana sidoo kale wuxuu ka wadaa waa inuu mar kale aniga iyo adiga waan is arki doonaa sidoo kale ayuu leeyahay. waxay ka dhigan tahay macasalaamo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan subscribe channelka haddii aad ku cusub tahay si aad ugu baratid luqadda Swahiliga. Fadlan riix meesha ay subscribe ku qoran tahay kadibna furo gambaleelka.